madaxweyne Farmaajo oo ka qayb galay sanad guuridii 59aad ee ka soo wareegatay aasaaska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed. madaxweyne Farmaajo oo qadka taleefanka kala socday xaaladda amni ee maamul goboleedka Galmudug. ابن عوف oo ahaa madaxii golaha amniga ee dalka Suudaan oo iscaslay Cabdilfataax Burhaan oo lagu bedelay. ciidamada Nigeria oo ka soo horjeestay dulmiga lagu hayo dadka shacabka ah ee dalkaasi. sirdoonka Itoobiya oo ku guuleystay inay fashaliyaan weerar ay xarakada Al-Shabaab damacsaneed. duqa magaalada Muqdisho oo ka dalbaday shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. guddiga dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo hooshooda ku qabtay magaalada Garowe ee Puntland. ciidamada amniga oo xiray wadooyin ka tirsan magaalada Muqdisho. Itoobiya oo walwal ka muujisay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya. Cabdilfataax Burhaan oo sheegay inay haweenayaan madaalibta shacabka Suudaaniga. mid ka tirsan ciidamada Daacish oo lagu dilay gobolka Bari ee Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay kulan ay la lahaayeen bangiga adduunka. ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo la yeeshay kulan wasiir ku-xigeenka difaaca ee dalka Mareykanka. wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay inay soo dhameeyeen dhammaan shuruudihii loogu baahnaa in deynta laga cafiyo. wafdi ka socda Ruushka oo booqanaya Qaahira ee dalka Masar. madaxweyne Farmaajo oo ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada inay isugu yimaadaan magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya oo kulan la yeeshay dhigiisa dalka Ruushka. bangiga dhexe ee Soomaaliya oo sameynaya lacag cusub. Barcelona oo ka badisay kooxda Manchester United. صالح جامع oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Salaad Cali Jeele oo ka soo horjeestay banaanbaxyada ka dhacay magaalada Muqdisho. baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday sharciga doorashooyinka dalka. dhaqaaqyo amni oo laga dareemayo magaalada Muqdisho. ciidamada amniga oo dilay mid ka tirsan kooxda Al-Shabaab. banaanbaxyo la filayo inay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Cali Geedi oo sheegay in qaar ka tirsan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ay ka dambeeyaan siyaasiyiin. ciidamo cusub oo dheeri ah oo lagu arkayo wadooyinka magaalada Muqdisho. wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya oo u digay Puntland. jeel Ogaadeniya oo loo bedelayo madxaf.